هو قبل قبل ما تليقوا ولا قبل تري هذا الأخير اللي قبل تري والله أنا وحيد شيء لا هو يا أنا وحيد شيء حاجة أبو شيء كوبوي ده كيلو مقعابي وقدوي عبد الله اللي قبل عبد الله اللي عبد الله ما أنا شو كده كده شو كده ليش الحمد لله عبد الله الشباب بس يسمع قول عبد الله إيه ما كسر ده يسمى دباء يعني وصو يعني إيه ما كسر قال شو باش ما وصو حلو دكتور يسمى ما والله قد يا كمان دوست وصو كسر دي sidaad arkaysaanba waa mid ka mid ah maxaabiistii ay Somaliland gacanta ku dhigtay oo ay sheegtay inuu ka tirsanaa ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxay ula dhaqmeen si aan loola dhaqmin maxaabiista iyaga oo markaasi u geysanaya handadaad iyo inay markaasi garaacaan sidaad muuqaalka ka arkaysaanba waxa uu sheeganayaa askarigaasi inuu ka tirsan yahay guutooyinka ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyagana waxa ay ku wadaan canaan iyo sidoo kale aflagaado haddaba halkee lagu qabtay askarigan goorma ayaa la qabtay faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa macluumaad kasta oo ku saabsan askarigaas iyo sidoo kale halka lagu qabtay waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhacay shalay inta u dhaxaysa qorilugud iyo sidoo kale shangeed oo ay isku fara saareen ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa difaaca maamulka waqooyi bari Soomaaliya maxaa ka cusub dhinaca gobolka Sanaag dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen ciidamada difaaca deegaanka ayaan sidoo kale kula wadaagi doonaa iyo duleedka magaalada Ceerigaabo oo laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay sameynayaan ciidanka difaaca deegaanka ee ka soo jeeda gobolka Sanaag soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo inta tabintan aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ka soconaya gudaha Somaliland iyo sidoo kale jabhado hubeysan oo ka soo horjeeda maamulka Somaliland oo suuragal tahay in looga dhawaaqo gudaha Somaliland kuwaas oo ay markaasi qorsheynayaan xubno siyaasiyiin ah culimo iyo sidoo kale aqoon-yahano maamulkaasi ka soo jeeda haymaan inaad muuqaalkan like gareyso oo aad sii share gareyso meel dheerna aad gaarsiiso si markaasi xogta iyo warbixinta ay u helaan dad badan oo danaynaya wararka iyo warbixinada gudaha Soomaalida iyo caalamka xagaag haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro hadda calaamada subscribe-ka noo taabo ka mid noqo saaxiibada mar kasta hela wararka iyo warbixinada aynu halkan ku baahino sidaad la socotaan bashalay waxa uu dagaal aad u qaraar ka dhacay isla markaana kooban inta u dhaxaysa deegaanada shangeed iyo sidoo kale qorilugud oo isku fara saareen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland iyo sidoo kale ciidamada difaaca deegaanka ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya dagaalka waxa uu ahaa mid si kadis ah ku dhacay isla markaana labada ciidan oo howlgal ama roondo ku jira ay isaga hor yimaadeen kadibna halkaasi dagaal uu ka dhacay khasaare kala duwan ayaa labada dhinac soo kala gaaray maamulka waqooyi bari waxa uu sheegtay inuu jiro khasaare xooggan oo gaarsiiyey dhinaca Somaliland inay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal kuwa kale ay gubeen ciidanna ay markaasi dhaawac u geysteen ilaa iyo 5 askari ayuu maamulka waqooyi bari sheegay inuu ka dhaawacay dhinaca Somaliland maanta waxay soo bandhigeen muuqaal askari ka tirsan ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo ay sheegeen inuu ahaa askar ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka Somaliland sidoo kalena ka mid ahaa askar uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo Generaal Cabdi Madoobe oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya si weynna maamulka Somaliland uu markaasi u doonayo maadaama uu ka mid yahay saraakiisha da'yarta ah ee sida weyn markaasi dagaalka adag ula galay maamulka Somaliland ciidamada Somaliland askariga ay gacanta ku dhigeen ay muuqaalkiisa soo bandhigeen waxaa markaasi ka muuqanayay inay handadaad iyo jirdil markaasi ay u geysanayeen isla markaana ay si adag ula dhaqmayeen haddaba marka la fiiriyo halka askari ee Somaliland gacanta ku dhigtay iyo boqolaalka askari ee Somaliland laga haya ee ku xareysan jaalasha magaalada Laascaanood sida ay ula dhaqmeen waxay markaasi abuurtay carag xooggan isla markaana bulshada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa si adag uga falceliyay iyaga oo amar ku bixiyay in markaasi
maxaabiista ay hayaan si adag ay ula dhaqmaan haddii somalilan markaasi ay joojin weyso ficilada markaasi qaladka ah ee ay maxaabiista kula dhaqmayso. haddaba dagaalkii shalay shangeed iyo qorilugud inta u dhexaysa ka dhacay waxaa markaasi lasoo warinayaa inuu jiro hal askari oo dhinaca maamulka waqooyi bari soomaaliya uu dhaawac markaasi ka soo gaaray oo weliba markaasi dhaawiciisu yahay mid aad u culus. xiriirro aynu la sameynay saraakiisha iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari madaxdiisa waxay gebi ahaanba ka gaabsadeen inay ka warbixiyaan dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay. waxaana ila dadka deegaanka ah oo kaalmoy miidiya la hadlay ay sheegeen inay jiraan dhaqdhaqaaqyo weli ka soconaya qorilugud iyo sidoo kale shangeed halkaasoo isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale kuwa maamulka waqooyi bari soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyaba qorilugud iyo shangeed waxay ahayd meel ay xiisad ka taagan tahay ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka waqooyi bari soomaaliya iyo sidoo kale kuwa somalilan. ciidamada maamulka somalilan waxay qorsheynayeen mar walba inay weerar ku qaadaan kuwa maamulka waqooyi bari soomaaliya, laakiin ciidanka maamulka waqooyi bari oo ah kuwo mar kasta feejigan islamarkaana heegan sare ku jira ayaa dhowr jeer waxay fashiliyeen weerarro qorsheysan oo somalilan ciidankeeda ay soo abaabuleen. qorilugud xiisad ayaa weli ka taagan, dhaqdhaqaaqyo ayaana soconaya, waxayna u muuqataa in mar kale labada ciidan ay halkaasi isku fara saari karaan. wixii ka soo kordha wararka iyo warbixinadeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. ku soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo ka mid noqo daawadayaasha ku xiran kaalmoy media. markanna dhinacaas iyo gobolka sanaag muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd meel ay ka taagan tahay xiisadaad u xooggan oo ay markaasi isku hayeen ciidamada difaaca deegaanka ee beesha warsangeliya sidoo kale ciidamada maamulka somalilan. deegaanada yube waqadariye iyo sidoo kale shidan waxay ahaayeen goobo horey looga saaray ciidanka maamulka somalilan islamarkaana ay gacanta ku hayeen ciidanka difaaca deegaanka welina markaasi ay ku sugan yihiin. somalilan ayaa dadaal kasta ku bixisay sidii ay deegaanadaasi dib gacanteeda ugu soo celin lahayd, iyada oo isku dayday in xal nabadeed ay deegaanadaasi dib ugu laabato. waa ay ku fashilantay mar kale qaab qabiil ayay maleeshiyaad u soo abaabushay, qorshahaasina sidoo kale waa uu fashilmay. mar kale somalilan waxa ay isku dayday awood military inay deegaanadaasi kula wareegto, laakiin si la mid ah qorshayaashii hore camal ayuu u fashilmay iskudaygaasi. hadda ciidanka difaaca deegaanka ayaa ku sugan dhammaan deegaanada waqdariye shidan iyo sidoo kale nawaaxigeeda ilaa iyuba ayay gacanta ku hayaan ciidanka difaaca, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ay helayeen gurmadyo kala duwan oo isugu jira sanad military iyo sidoo kale ciidanba. dhowaan waxaa halkaasi gaaray gaadiid dagaal oo muddo ku xayirnaa dekadda magaalada boosaaso kaasoo ay lahaayeen ciidanka difaaca deegaanka, islamarkaana ugu dambayn waxaa markaasi wadahadal ka yeeshay suldaan siciid iyo sidoo kale isimada dhaqanka ee gobolka sanaag iyo madaxweynaha puntland. waxaana puntland lagu qanciyey in hubkaasi loo sii daayo ciidanka difaaca deegaanka islamarkaana lagu wareejiyo. waxaana la geeyey deegaanka shidan halkaasoo ciidanka difaaca deegaanka waqti xaadirkan ay howlgallo markaasi kaga samaynayaan. gobolka sanaag waxa uu muuqdaa laftirkiisa inay xiisad ka taagan tahay, dhaqdhaqaaqyo culus ayay dadka deegaanka soo warinayaan. duleedka magaalada ceerigabo meel qiyaastii 15 kilomitir u jirta, ciidamada difaaca deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey fariisimo ka samaysanaya iyaga oo difaacyo adag markaasi halkaa ka qotay. war hadda soo dhacay ee dhinaca gobolka sool waxa uu sheegayaa in ilaa iyo 5 askari oo ka soo goosatay ciidankii uu hogaaminayay mahad cambaashe ee ku sugnaa nawaaxiga oog ay isku soo dhiibeen ciidamada maamulka waqooyi bari soomaaliya. waxaana ciidankaas soo goostay ee 5 askari la sheegayaa in heeb ahaan mahad cambaashe ay isxigaan ayna go'aansadeen inay isaga soo baxaan. guud ahaan wixii ka soo kordha ciidamada soo goostay iyo xiisadda halkaasi ka taagan iyo dhaqdhaqaaqyada soconaya wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. muuqaalka like gare, aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sidaad u aragto somalilan ma ku saxan tahay sida ay ula dhaqantay maxbuuska ay gacanta ku dhigeen.